الرحيم وأول صحافات حزب الوطني سيد الدكتور يهي مدن أحمد مؤمن سيد وحقوق الرئيس شرعي وغيب قال الشركة كلها دحاء تاريخ زهايد سقالي 10 كيلوات بيش أكتوبر يسوقوا كوكان عسن سيد الشركة وسعودو إسلام مركانا وحقوق ذي دمانجو أمضي الشركة أي كم دهاين حير كحزبك برنامج كحزبك برنامج سياسي كحزبك قدومية كميلقارك وجامعة حزبك يوليبا مشرح مدحوينها حزبك سووا دمانتود قعنتو تاجي بل سووا سلوك موجي إسلام مركان دبده وقبحي شركة كلها ده حزبك كدب مركي لو عديني مشرح مدحوينك وحجينك إيه وكل جول درستين وهلا أغلبية ده رجدا كلها ده أصيه الشيء يدل حيرين أيوه بقى كوضع هذا يسلح حزبك جدوين يا حزبية ده كلام waxa madaxda xisbigu isla goobtii ku go'aamiyeen in rigahan loogu tago isla markaana lala gorfeeyo tabashooyinkiisa ergooyinka isxilqaamay ee gaargaarka ugu tagay waxa kamid ahaa gudoomiyaha xisbiga hogaamiyaha xisbiga xogeyaha guud ee xisbiga xogeyaha cadaaladda mudane maxamed biixi yoonis iyo mudane cali axmed cabdi cantar iyo mas'uuliyiin kale sida laga warqabo saddex musharax ee buuxiyay shuruudihii musharaxnimo waxay saxeexeen anshaxa musharaxnimo iyo anshaxa doorashada oo ay kamid ahayd aqbalaadda iyo hogaansanaanta natiijada doorashada isagoo warbaahinta horteeda ka cadeeyay inuu hogaansamayo go'aamada shirka ka soo baxa dhinaca kale mudane faarax maxamed cabdulle wuxuu si cad ugu gacan sayray inuu la kulmo ergadii sulxa ee kala duwanay markii ay diideen waantii ergada waxa gudoomiyaha xisbigu ka codsaday inay ka soo qayb galaan shirka hoggaanka xisbiga iyadoo loo diray warqad aqoon ogeysiina balse nasiib darro kama soo qaybin shirkaas waxa kale mudane axmed muumin seed iyo mudane faarax maxamed cabdulle ay ka dhagaageen yirimadii guddiga anshaxa ee xisbiga haddaba markii ay guddiga anshax marintu ku qanacday in mudane axmed muumin seed ku gafay anshaxa doorashada code of conduct هو صحيح لما كان يجدد كوكان عضي إن أحمد مؤمن ساد يمدن فارح محمد عبد الله الديدين يرجدي سلعة هاي هي يرمدي جود جانشة جود جانشة عمركي أي هبسطي إن يساعد تبين قلب كسجالات فقردي سكوبات شنات تطبات سديات دي سجالات حير كحزب وطني وحيجدد وعضاتي إن سيان كبشلهين وهو ليهين في علو وحيلا كوع سمعة يبدو شركة حزبك كان سوري هذا حير كحزبك هذا guddiga anshax marintu markay ku qanacday in mudane axmed muumin seed iyo mudane faarax maxamed cabdulle mutaysteen dhammaan asbaabihii lagu waayi lahaa xilka gudoomiye ku-xigeenka koobaad iyo xubinnimada iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo xubinnimada sida ku tilmaaman qodobka 37 faqradiisa koobaad xarafka ba waxa gudoomiyaha xisbigu ka codsadeen inuu si waafaqsan xeerka xisbiga ugu gudbiyo guddiga fulinta xisbiga wadani gudoomiyuhu isagoo raacaya xeerka xisbiga wuxuu isugu yeeray guddiga fulinta una gudbiyay soo jeedintii in la anshax mariyo labadaas mas'uul kadib warbixintii guddiga anshax marinta guddiga fulinta dood dheer kadib waxa gacan taag ku ansixiyeen in labadaas mas'uul laga qaado xilkii iyo xubinnimadii xisbiga waxa shirka fadhiyay 43 xubnood oo guddiga fulinta 42 xubnood way u codeeyeen xilka iyo xubinnimada laga qaado labada mas'uul ee kala ah axmed muumin seed gudoomiye ku-xigeenka koobaad iyo mudane faarax maxamed cabdulle gudoomiye ku-xigeenka labaad gudoomiyuhuna muu codeyn halkaas waxa ku ansaxay go'aankii guddiga fulinta qoraalka khuseeya go'aanka guddiga fulinta ee xilka qaadis labada mas'uul waxa loo gudbin doonaa hay'adaha qaranka ay khuseyso iyo mudanayaasha xilka laga qaaday wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh